doorashada wadanka Holland xagee la kala maraya yaa guuleystay ma ninkii islaamka iyo soo galootiga nacba ayaa guuleystay mise ninkii kale ee dhexdhexaadka ah ayaa guuleystay halkan ayaa arrintan oo dhan kuugu falanqeyn doona ee soo dhawow marka koobaad wadankan doorashada ka dhacday waxay noqotay tii ugu weyneed abid ee dadka tartamaya ay noqdaan kuwo aad isugu dhow sidaas daraadeed ilaa ay waqtigan la joogo guddiga doorashooyinku kuma aysan dhawaaqin natiijada rasmiga ah sababtana waxa ay tahay in aad la isugu dhow yahay welina codadka qaarkood la tirinayo kuwii online-ka la tirinayo kuwii dalka dibadiisa laga keenay la tirinayo sidaas daraadeed ilaa iyo maalinka ah talaadada ay qabsadeen in ay ayagu goyn doonaan natiijada laakiin wariyaasha iyo warbaahinta ugu afdheer wadankani ayaa hordhac ay sameeyaan waxa ay sheegeen in Geert Wilders BVV ninka hogaamiye islaamka iyo nacba qaxootiga laga adkaaday guushiina laga qaatay oo guushi qaatay ninka wata de sesesdaq ninkaasi oo ah nin dhexdhexaad ah ayaa la sheegay in uu 15,000 oo cod uu ka horeeyo ninkan kale ee BVV wata ee Geert Wilders loo yaqaano waxa ay sheegeen codadka dhiman ee la tirinayo maadaama iyagu ay xaaladda la socdaan isha ay ku hayaan haddii la tiriyo xitaa aysan 15,000 aysan gaarin sidaas daraadeedna hadda 15,000 laga horeeyo haddii 15,000kaas xitaa dhiman ama wax ka yar ay u codeeyaan Geert Wilders in aysan noqon doonin in asagu uu guuleysto sidaas daraadeedna laga guuleystay oo doorashada haatan uu si rasmi ah ugu guuleystay ninka loo yaqaano Chaton oo hogaamiya da 66 sidaas daraadeedna uu noqon doono ra'iisul wasaaraha cusub ee wadankan laakiin Wilders oo arrintaas ka xanaaqay waxa uu sheegay wariyaasha iyo warbaahinta shaqadooda inaysan waxaas ahayn iyo in ay ayagu si carabaabaan ama ay ka soo hordhacaan doorashada cidda guuleysatay guddiga doorashooyinka jawaabta uu ka sugayo ilaa iyo talaadana ay qaadan karto laakiin si hordhac ah waxaa loo cadeynayaa ninkan in laga guuleystay 15,000 oo cod laga horeeyo uusan gaari karin gabi ahaanteedaba xitaa waxaa suurtagal ayaa leeyahay hadda 26 kursi ayay wada haystaan haddii Wilders codad badan uu heli waayo inta yar tahay dhiman ee la tirin doono waxay noqon doontaa in kursi uu lumiyo kursigaasna uu qaato ninkan da 66 wata sidaas daraadeedna uu 27 kursi sidaas ku helo guul caadi ahna uu qaato hadda guushu waxa ay tahay lambaris 15,000 horeeya 14,000 horeeya 16,000 ka horeeya sidaas ayuu guushu ku qaadanaya hadeerta laakiin haddii kursi caadi ah uu uga darsado waxay noqon doontaa 27 kursi inuu qaato asagana uu qaato 25 kursi sidaasna looga guuleysto si cad si kastaba guushu waa dhanka ninka da 66 wata oo la aaminsan yahay in wadankan ra'iisul wasaarihiisii ugu da'da yaraa uu noqon doono waxbaana isbedeli kara maadaama weli guddigii doorashadu aysan si rasmi ah natiijada ugu dhawaaqan oo aysan sheeginin cidda guuleysatay laakiin gabi ahaanba sida loo badinayo waa laga guuleystay Geert Wilders BVV ninkii nacba islaamka iyo cunsuriga qof kastana sidaasi ayuu ogaanayaa hadda wixii ka dambaysa guddiga doorashadana waxaa laga sugi doonaa maalinka talaadada kaliya inay guush ku dhawaaqaan sababtoo ah waxana waa lala socdaa systema jira codadka qof kasta wuu fiirin karaa sida loo kala horeeya la arki karaa waxa dhimana la arki karaa sidaas daraadeed waa la sii ogaan karaa cidda guuleysanaysa iyadoo xitaa ay kumanaan la kala horeeyo sababtoo ah inta dhiman ee aan la tirin ayaa la fahmi karaa inta la tiriyo ayaa la fahmi karaa inta dhiman ee aan la tirinin haddii ay ka yar tahay inta ninkan uu ka horeeyo oo 15,000 uu iska caddaa waxa guuleystay ninka desesdaq wata sidaas daraadeed doorashadii wadanka Holland waxay u badan tahay in lagu kala baxay laakiin guddiga doorashooyinka ayaa la sugi doonaa warkuna halkaas ku dhaya